haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista iyo Haruun Macruuf. Soomaaliya waxay maalmo gudaheed dib u fasaxi doontaa duulimaadyadii caalamiga ahaa oo la hakiyay 18 bishii Maarso ee sanadkan. Diyaaradaha la joojiyay qayb badan oo ka mid ah waxay dibadda ka keeni jireen qaadka. Ujeedada ugu weyn ee loo hakiyayna waxay ahayd in laga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday in siyaabo kala duwan uu qaadku u soo geliyay Soomaaliya, dhinaca dhulka iyo cirkaba. soo gelitaanka qaadka ee dalka ma jabinayn oo kaliya xayiraadii dawladda Soomaaliya. waxay sidoo kale xadgudub ku ahayd caafimaadka bulshada. waxa kale oo ay kashifaad ku ahayd awoodda hirgelinta ee amarada dawladda ee dhinaca hawada oo aad u liidata. haddaba diyaaradaha ka diiwaan gashan Kenya oo adeegsanaya xeelado kala duwan ayaa si istaba joog ah ugu xadgudbayay amarkii dawladda Soomaaliya ay ku joojisay qaadka. barnaamijka galka baaristu waxa uu xaqiijiyay 4 duulimaad oo keenay qaad tiro badan kana soo degay meelo kala duwan oo dalka ah. Soomaaliya waxay maamulka hawadeeda la soo wareegtay 2017. waxayna dawladdu xilligan leedahay awood ay ku ogaato diyaaradaha maraya hawadeeda iyo kuwa soo galaya. waxay sidoo kale awood u leedahay inay joojiso diyaaradaha aysan doonayn inay hawada Soomaaliya soo galaan ka hor inta aysan soo galin. mid ka mid ah duulimaadyada qaadka ku faafiyay dalka waxa uu dhacay 19 bishii Juun kadib markii diyaarad ka diiwaan gashan Kenya ay ka kacday magaalada Muqdisho, iyadoo saraakiisha duulimaadkana u sheegtay inay daawooyin geynayso magaalada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose. diyaaraddaasi ayaa sii qaaday kartoomo dhowr ah oo korka ay kaga qoran yihiin COVID-19. hase yeeshee markii ay ka degtay magaalada Dhobley waxay halkaasi ka soo qaaday kartoomo badan oo uu ku jira qaad, kuwaasi oo isla maalintiiba keentay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaas oo ay ku diyaarsanaayeen baabuur iyo doonyo u sii kala gudbiyey deegaano kala duwan oo dalka ah. diyaaraddaasi waxaa lahayd shirkadda Silverstone oo ka diiwaan gashan Kenya. hase yeeshee xilliga ay shixnadan qaadaysay waxay u karaysnayd shirkad ka diiwaan gashan Soomaaliya oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics. qaadkaasina waxaa la keenay Muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah, iyadoo lagu sii kala gudbiyey doonyo. saraakiil ku sugan magaalada Baraawe waxay ii sheegeen inay ka shakiyeen in xamuulka diyaaraddaasi ay wado uu xadgudub ku yahay amarkii dawladda, balse markii saraakiishaasi ay isku dayeen inay baadhaan diyaaradda laga hor istaagay, iyadoo is-hortaaggaasna ay sameeyeen saraakiil kale oo Soomaali ah, sida ay mas-uuliyiinta deegaanku u sheegeen galka baarista. wararka uu helay galka baaristu waxay muujinayaan in diyaaraddaasi muddo maalmo ah lagu xayiray magaalada Muqdisho kadibna lagu amray inay dalka ka baxdo, iyadoo markii dambena loo fasaxay duulimaadyadeeda markii ay ogolaatay inay bixiso ganaax. wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaan wax ka weydiiyey xadgudubyadan dhinaca hawada ee ay sameynayeen diyaaradaha Kenya. xadgudubkan wuxuu dhacay 2 mar hore 2 diyaaradood hore ku dhacay. innagana waxaan sameynay digniin kama dambaysana waan siinay oo qoraal ah iyo warqad ka saxiixnay ganaax ee civil aviation ku aaminsan yahay inuu yahay ganaaxa ugu habboon ee ugu badan intaba. Silverstone ma ka mid tahay shirkadaha digniinta kama dambaysta la siiyay? shirkadaha hore dambiga u galay waxay ahaayeen Buff Air iyo Silverstone. haddii labadaa mid ka mid ah ay noqoto diyaaradda hadda aan sheegayno, midda kale waan rabaa inaan xaqiijiyo waxaa weeye Silverstone marka la yidhaahdo Silverstone waxay lahaan kartaa diyaarado kala duwan ayay lahaan kartaa, dhowr diyaaradood ayay leedahay. Buff Airna sidoo kale haddii mid ka mid ah iyaga hadda violation mar labaad ay samayso ayagoo digniintii haysato mar labaad baa raba inaan ku celiyo, waxaan marsiinaynaa sida sharciga uu qabo, sida waraaqihii hore aan ugu qornay sharciga ayaan marsiinaynaa. laakiin wasiir, sida hadda hadalkaa ka muuqata Silverstone hadda waad u qiildayaysaa, sababtoo ah Silverstone haddii ay leedahay kaba soo qaad 10 diyaaradood ama 3 diyaaradood oo mid ka mid ay ku soo xadgudubto, ma diyaaraddaa soo xadgudubtay unbaad bartilmaameedsanaysaan mise shirkaddii iska lahayd ee xadgudubkan magaceeda lagu sameeyey? Haruun, diyaaradda Silverstone uma qiilday ma aqaan qolo iskale. waxaan ogahay shirkad Soomaaliyeed inay tahay Kenya ka register garaysan oo ka mid ah client-igan aniga aan la diil gareeyo oo
investigation ka mid tahay. Qiildayd ma jirto. Silverstone diyaarado badan ayay leedahay. haddii mid ka mid ah ay violate garayso laysanka diyaaradahaas wuxuu saameynayaa diyaaradaha kale oo idil ee kambanigaas uu leeyahay ee Soomaaliya ka shaqeeya. marka haddii ay caddaato inay dambigaa galeen dhammaantood way saameynaysaa diyaaradaheeda oo dhan shirkadda way saameynaysaa. keliya waxaan rabaa inaan ka taxadaro inaanan go-aan ku gaarin hebel baa soo arkay iyo warqadda hebel baan la hadlay ay ahaato investigation aan sameyno waan ku dhex jirnaa meelo gabagabo noo maraya information oo biased ana ma aha waa wax ka baxa anaga waxaan sameynay airportada inagaa maamulo meel kasta intay ka soo baxday iyo ka imaanayso kulli marka waxba nagama qarsoonaanayo dowladda raal 26 bishii May ee sanadkan diyaarad ay leedahay shirkadda Silverstone ee laga leeyahay dalka Kenya waxay qaad geysay magaalada Jowhar shixnadaasi oo lagu dhex qariyay kartoomo ay ku qoran tahay COVID-19 sida ay mas'uuliyiinta Soomaalidu u sheegeen galka baarista. qayb ka mid ah qaadka ay diyaaradaasi keentay magaalada Jowhar waxaa halkaasi ka soo galbiyay xubno ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya kuwaasi oo u soo galbiyay dhinaca magaalada Muqdisho. markii ay marayeen deegaanka Gololey waxaa ciidankaasi lagu qarxiyay miino dhulka loogu aasay waxaana miinadaasi ku dhintay 9 askari oo galbinaysay qaadkaasi. dil kale oo la xiriira dhimashada askartaasi ayaa dhacay 2 maalmood kadib 28 bishii May kaasi oo lagu dilay 7 qof oo shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah isla deegaanka Gololey. sidaasina waxaa qaadkaasi sababsatay 17 qof oo isugu jira 9 askari 7 shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah kuwaasi oo dhammaantood ku jiray furimaha kala duwan ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo furinta kale ee la dagaalanka cudurka COVID-19. 31 bishii May ee isla sanadkan diyaarad ay leedahay shirkadda Buff Airlines ayaa qaad ku dejisay magaalada Buuhoodle qaadkaasi oo lagu dhex qariyay kartoomo ay ku qoran yihiin COVID-19 sida ay mas'uuliyiinta Soomaalidu u sheegeen galka baarista. dowladda Soomaaliya waxay maalmo kooban mamnuucday ogolaanshihii shirkadaha Silverstone iyo Buff Airlines ay ku soo gali lahaayeen Soomaaliya. hase yeeshee 3 maalmood kadib 3 bishii Juun Soomaaliya waxay go'aansatay inay mamnuucistii ugu beddesho ganaax dhan $3,000 diyaaradiiba. $3,000 uma dhiganto qiimaha baabuurkii ay la socdeen askartii lagu laayay Gololey inta aanba la gaarin nolosha askartii ku dhimatay iyo xadgudubkii ka dambeeyay ee dhacay maalmo kadib laguna laayay shaqaalaha caafimaadka. haddii dhinac kale laga eegana diyaarada ay leedahay shirkadda Silverstone waxay mar labaad ku lug lahayd qaadkii laga keenay magaalada Dhobley ee la dejiyay magaalada Baraawe 19 bishii Juun. inkastoo xilligaasi diyaaradda Silverstone ay u kareysnayd shirkad Soomaali ah oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics. galka baaristu waxa uu la xiriiray Buff Airlines, Silverstone iyo Mandeq Air Logistics. dhammaantood waxay ku gacan sayreen inay waraysi siiyaan barnaamijka galka baarista. duulimaad kale oo ku xadgudbay xayiraadii ay soo rogtay dowladda Soomaaliya waxa uu dhacay 9 bishii Juun. waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka kacday diyaarad sumadeedu tahay 5YBMZ oo ka diiwaan gashan dalka Kenya. intii aysan ka kicin magaalada Muqdisho diyaaradaasi waxay u sheegtay saraakiisha Soomaalida inay qof jiran ka soo qaadayso magaalada Afmadow. hase yeeshee diyaaradaasi ma degin Afmadow waxayna u gudubtay magaalada Dhobley halkaasi oo ay ka soo qaaday qaad tiro badan oo ku diyaarsanaa lagana soo geliyay dhinaca xuduudda Kenya. waxayna isla maalintaasi qaadkaasi ka soo dejisay garoonka Ciiseley oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Muqdisho. diyaaradaasi waxaa la sheegay in intii ay ku jirtay duulimaadkeeda ay demisay transponderka ama qalabka lagula socdo halka ay marayso. hase yeeshee mas'uuliyiinta Soomaalida oo adeegsanaya xogta laga helay duuliyaal kale iyo qalab kaleba waxay ogaadeen goobta uu qaadkaasi ka soo degay waxayna aqoonsadeen diyaaradda iyo duuliyaashii wadayba. diyaaradan ayaa markii ay qaadka dejisay dib ugu laabatay dalka Kenya. mar kale waa kan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar. hawada Soomaaliya diyaarad kasta oo soo galaysa iyo ka baxaysa permit ay kusoo gashaa kana baxdaa intaasna inaga sameeyna inaga ilaalino. laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano. wadamada adiga aad joogto wadankaad adiga joogto muxaadaraad waa la soo gashaa sidaas oo kale lagu soo gashaa si la mid ah baa lagu soo gashaa. dadku waxay keenaan khayaamooyin ay ku sameeyaan in ay lacag badsadaan. khayaamooyin ay la yimaadaan tan waa khayaamooyinka khayaano ka mid ah. khayaamo kastoo baranana albaabadeeda waan soo xireyna
wasiir waxay ila tahay arrintani kolley fasiraadaada na waad bixin doontaa inay arrintani kaba culus tahayba xadgudub keliya midda koowaad go-aankii dowladda ku xadgudubtay, midda labaad sidaad sheegayso khiyaanay samaysay, midda saddexaad caafimaadkii wadanka iyo bulshada soomaalida ayay halis gelisay oo qaad aan laga cunin Kenya oo dowladda Kenya ay dadkeeda uga baqday inuu cudurka ku faafiyo ayaa Soomaaliya la keenaya. marka wasiir miyaysan kaba cuslayn ba hawo kaliya arrintu arrin caafimaad amni qaran maysan noqon karin? arrintu waa arrin caafimaad oo runtii muhiim ah. sidaan hore u sheegay mukhaadaraad contraband oo dhan wad kasta waa la soo geliyaa. waxaan raadinaynaa albaabada ugu fiican ee lagu xirayo inta keentay iyo wixii ka dambeeyay oo dhan sidii looga taxadir lahaa inaynan dib dambe u isticmaalin hawadeena, in culeyska ugu badan ayaga uu ku dhaco si uu cashir inta kalena ugu noqdo. Soomaaliya waxay xilligan doonaysaa inay cabashadeeda si toos ah u gaarsiiso dowladda Kenya, isla markaana ay la socodsiiso hay-adaha caalamiga ee duulimaadyada hawada, iyadoo bartilmaameedsanaysa duuliyayaasha diyaaradaha. tusaale ahaan 13 bishii Juun Soomaaliya waxay qoraal u qortay dowladda Kenya ay kaga codsanayso in shaqada duuliyanimada laga joojiyo labadii duuliye ee waday diyaaradii qaadka geysay garoonka Ciisaley. Xasan Xaashi Maxamed waa gudoomiyaha shirkadaha diyaaradaha Soomaalida. waxaan wax ka weydiiyey xadgudubyadan dhacaya oo ay ku lug lahayd mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha Soomaalida. runtii aad baan uga xunnahay, annagu waana ka soo horjeednaa xilli la ilaalinayo badqabka dalka iyo dadka in shaad la soo geliyo oo ay diyaaraduhu soo geliyaan. annagu ka urur ahaan aad baan uga soo horjeednaa, ma danaynayna arrintaas. waxaana la mid tahay waxyaabaha dalka lagu ilaalinayo ka mid ah. waaye laakiin si guud haddaan ku weydiiyo seed u aragtaa idinkoo mas-uuliyiintii diyaaradaha ka mid a in diyaaradihiinnii qaar ka mid a dhammaantood ma aha, intooda badanna ma aha, waa in yaroo ka mid a in loo adeegsado in agab ama shixnad sharci darro ah caafimaadkii dadkana maaragtay halis gelinaysa lagu gaadhsiiyo gobollo ka mid a waddanka? maya, annagu arrintaas waa sheegay, aad baan uga soo horjeednaa, mana yeelayna shirkad ka mida associationkeega in ay fal noocaasa ku shaqaysato, haddana ay maaragtay iyadoo ku dhaawacaysa badqabka dalka iyo dadka raalli kama nihin. annagu arrintaas baana ka soo horjeednaa. waxaa kaloo galka baaristu u ogaaday in diyaarada ay leedahay shirkadda Hanford Africa ay soo codsatay 13 bishan Juulaay in loo ogolaado inay shixnad isugu jirta daawo, caano iyo khudaar geyso magaalada Hargeysa. hase yeeshee mas-uuliyiinta duulista hawada ee Soomaalidu waxay diideen diyaaraddaasi inay soo gasho hawada kadib markii ay heleen xogo sheegaya in dhab ahaan ay diyaaraddaasi sido shixnad qaad ah. mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay ii sheegeen inuu xiriir weyn ka dhexeeyo fiditaanka cudurka COVID-19 iyo qaadka soo gelaya waddanka. Abuukar Cawaale Qaadiid waxa uu ololeeyaa la dagaalanka qaadka, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaalida inaysan fududaynin qaadkan soo gelaya gudaha Soomaaliya iyo xadgudubka ay samaynayaan diyaaradaha Kenya. COVID-19 waa masiibo ilaahay adduunkan u soo diray, dadkuna way u baahan yihiin gargaar degdega, laakiin baakadkiisa iyo calaamadiisii in loo isticmaalo waan maqlay. qaadka Ethiopia ka soo gala dhinaca beledweyne oo kale ka soo gala, halkaas diyaaradaha localka laga soo saaro, muqdisho saas ku yimaado. muqdisho waxa gudbinayo airport soo dhaafanayna waa isla rag saraakiil ah. marka eedaasi kolley anigu waxaan korka uga tuurayaa waa raggii ay ahayd mas-uuliyadda ku dhaartay oo moral ahaan ahayd inay dhibtaas ka hortagaan. waana musuqmaasuq, waana waxyaalaha geeska Afrika iyo Soomaaliya la haray oo ayaan darro weyn runtii. ganaaxa iyo lacagta la saarayo shirkadahan waxaa laga yaabaa inay si dhib yar uga heli karaan qaadka ay soo gelinayaan. marka maxaad ku talin lahayd in lagu joojin karo diyaaradahan sharci darrada ku soo gelinaya qaadka waddanka? uma malaynayo runtii ganaax yaroo la saaray inay ku istaagayaan. diyaaradahan waxaa laysanka siiya wasaaradda duulista iyo hawada. diyaaradii xushmad darraysa ama ku kacda fal dembigaasa waxaan aaminsanahay totally in laysanka laga qaado ay kaargooba ku keeni karto. waxaan kaloo aaminsanahay runtii hadda fooda waxaan lagu soo haysa 1 August oo la filayo hawada in la furo waxaan non essential ahayn oo aan muhiim ahayn
oo weli cudurkii waa cillad weli taagan in diyaaradoo dhan ba aan loo furin ba qaadkaan aaminsanahay hadda ka hor baa gabar fanaanado haysta waxay tiri in dhibaato ugu filan faraqan ku haystaa Soomaaliya waxaa dhibaato hadda ugu filan qaadka badda iyo dhulka ka soo galay meesha kaliya oo aan awood u leenahay oo aan control karno waa cirka waxaan boorin lahaa ana dhiirigelin lahaa wariyada loo turay ayaha ubadka Soomaaliyeed billahi calaykum ya cirka la soo furin barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo